Barasaabka gobolka Gabiley Maxamed Cismaan Xaaji Axmed Indhabalac ayaa maanta kormeer ku soo maray mashaariica ay dawladdu ka wado gudaha magaalada Gabiley sida dhismaha jeelka weyn ee magaalada Gabiley oo dib u dhis ballaarin lagu samaynayo dhismaha taliska qaybta booliiska gobolka Gabiley iyo sidoo kale xarunta ciidanka debdemiska oo markii ugu horeysay laga hirgelinayo magaalada Gabiley waxa kale oo barasaabka gobolka Gabiley kormeerkani ku soo maray jidlaami oo Farhaada oo dawladda hoose ee degmada Gabiley ka hirgelisay gudaha magaalada Gabiley iyo sidoo kale qaar ka mid ah sariimadaha magaaladaasi kormeerkani oo barasaabka ay ku helinayeen maamulka dawladda hoose ee degmada Gabiley taliyaha qaybta booliiska gobolka Gabiley ayaa markii uu kormeerkaasi soo idlaaday waxa warbaahinta halkaasi kala hadlay ugu korgalay xaaladda ismayaasha ee ka socda xarumaha dawladda oo runtii qaybtuna ay ka mid tahay runtii markii aan gobolka imid waxyaalaha aan diiradda saaray waxaa ka mid ahaa in qaybtu ay hesho meel ay hawlaheeda ku maamulato oo runtii guri kiraa ku jirtay iyadana kormeerka aan ku soo marayna ka mid ah xaruntii dendemiska gobolka Gabiley oo runtii iyadana maanta la bilaabayo oo ismaheedii imika uu bilow yahay marayay mashaariicda gobolka ka socota wafdigii hogaaminayay indhaynayay balqaabka ay mashaariicdu u socoto hadda waxa halkan aynu taaganahay tahay qaybtii booliiska Gabiley runtii waxa farxadii ah inaan ku soo beegmo anu ka taliye qaybeed ahaan qaybtii Gabiley oo maaragtay guri qiimo badan oo runtii ay yar tahay qaybaha haysta laga dhisayo halkan aynu taaganahayna waxa weeyaan debdemisku waa ciidan ka mid ah ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo la dagaalama halista dabka cadawga dabku goobtan aynu joognaa waa xaruntii debdemiska ee gobolka Gabiley waa xarun runtii ay u baahnayd magaaladu kormeerkii caadiga ah ee uu sameyn jiray barasaabku ay maanta aynu ku guda jirnaa oo barasaabku uu ku kormeerayay hawlaha iyo mashaariicda gobolka ka socota aadna ugu hambalyeynayno si inuu nagu kormeero wixii aanu qabanay ka dawlad hoose ahaan iyo dawladda dhexe wixii ay qabatay waa Sakariya Nuux Ibraahim warbaahinta SBC gobolka Gabiley.